بسم الله السلام الله عليكم soo dhawaada asxaabta qaaliga ah waxaan rajeynayaa inaad wanaagsan tihiin dabcan kana faa'iidaysteen isbuucii dhaweyd na dhaafay dabcan inkastoo iska ahaa isbuuc ay yani holiday ku jirto laakiin masha Allah lacagihii qaar aan eeganayni qaarkood way dhaqaaqeen dabcan waxaa u badinayaa arbacadii baa u badinayaa inaan soo dhigay update dabcan aan ku sameynayo lacagaha so arbacadii wixii ka dambeeyey khamiistii iyo maxaa la dhahaa jimcihii bay saaid u dhaqaaqeen dabcan haddaan dib ugu laabto lacagaha si aan kuu tuso lacagihii aan ka faa'iidaysan dabcan lacagtan DXY bay ahayd dabcan isbuucii dhaweyd hadda aan ka falaqeynay dabcan halkaa inay kasoo dhacayso dabcan already wayna soo dhaqaaqday dabcan hadday step flag ay ku jirtaa waxaa laga yaabaa step flaggaas inay all the way sii dhici doonto ay soo dhici so iyadana waa la rajeynaya insha Allah inay soo dhici doonto lacagtan DXY bay ahayd dabcan iyadana jihada silkaan ka sugeynay oo lacagaha ay yani ay DX2 ay ku jirto baan jiho ka sugeynay wax la dhaho down ah hadaan tago 1 hour time frame ka iyadana يعني waxaa meesha kaaga muuqda wax la dhaho in trailingkii laga celiyo dabcan 4 hour time frame kada tagtid halkan week baa kaaga muuqda dabcan macquul ma tahay in lacagtani ay sii socoto dabcan oo halka ay tagto yes way tegi karaysaa laakiin waxaan kusoo dari doonaa insha Allah falanqeynta isbuuca laakiin lacagahan US2 ay ku jirtaan waa galnay dabcan hadda ilaa hadda waan ku jirnaa flaggaad baan ka faa'iidaysanay iyadana lacag aad u qurux badan bay ahayd sidoo kale waxaa laga rajeynaya waxa weeye in all the way ay continuation ku socoto dabcan macquul ma tahay inay soo laabato yes halkan way iman karaysaa dabcan so maxay noqon karaysaa waxayna siin karaysaa wax la dhaho another opportunity kale ama fursad kale siin karaysaa dabcan sidoo kale lacagtan ay dhahaan NCDUSD iyadana saas oo kale weeye dabcan waad ujeedaan lacagtan inaan qaadanay waxaan rajeynaynaa insha Allah lacagtan inay iyadana dhaqaaqi doonto ilaa expanding ka ay buuxsanayso dabcan sidoo kale lacagtan maxaa la dhahaa goldigana iyadana wax yani trade ama ka qaadan waayo yani goldiga sidoo kale wuxuu noo sheegayaa lacagtan in all the way la kala celinayo xagee la geyn doonaa insha Allah in halkaa la geyn doono wuu noo sheega sababta lacagahan USD ku jirto sababtay yani noogu sheegayaan jihada fayga sidoo kale JBP AUD waa jirtay iyadana lacagtan wax interior oo saas u qurux maysan bixin laakiin waxay sameysay hoos diyaarin bay ku jirtay waad ujeedaa a lot of correction badan oo meesha ka dhacay waxaan u badinayaa la soo daawateed maxaa la dhahaa update-ka aan siiyey arbacadii in ay wax saas aysan muujin dabcan rajeynaya insha Allah isbuucan inay soo yaaci doonto insha Allah sidoo kale lacagtan ay dhahaan AUD CHF iyadana dabcan waad ujeedaan oo si waadix ah waad ugu jeedan dabcan iyadana maxay sameeyeen waxaa laga yaabaa isbuucan in iyadana ay double bottom soo doonato kadibna all the way ay sii dejinayso sidoo kale Euro AUD iyadana waxay ka mid tahay lacagihii aan isbuucan qaadanay oo ka faa'iidaysanay dabcan rajeynayna inay sii socoto ilaa xaggii halkan head and shoulder baa laga yaabaa inay ka sameyso kadibna all the way ay lacagtan dhacdo iyadana lacagaha aan isbuucan ka faa'iidaysanay ku jirtaa sidoo kale waxaa jirtay waxa la dhaho lacagtan AUD CHF iyo waliba Euro AUD labadan lacagood opposite isku ahayn waayo lacagtan yani lacagtan waxay kuu sheegay jihaaba markii lacagtaas jiha sare kuu sheegay dabcan waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka faa'iidaysteen lacagaha aan yani manage gareyn doontaan insha Allah waa inoo iyo wii kasoo socdo insha Allah iyo waliba lacago kale cusub insha Allah aad baad mahadsantihiin asxaabta qaaliga